kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Bomas Media wararka maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona ciidamada Puntland iyo rag weysan oo xalay ku dagaalamay Garowe ahlu sunna oo isaga baxday Ceeldheer iyo Galmudug oo xalay dib u la wareegay Tigreega oo lagu qaaday weerar jaha kasta daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay iska horimaad xalay ka dhacay bartamaha magaalada Garowe ee caasimadda Puntland kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada ammaanka ee maamulkaasi iyo rag hubeysan israasaasanta ayaa timid kadib markii xalay isku dhaceen ciidamada Puntland oo ku jiray roondo iyo rag ka ganacsada maandooriyaha oo xilligaasi la socday gaari nooca raaxada ah ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa ku dhintay israasaasanta labada dhinac waxaana ku dhaawacmay tiro kale sida ay xaqiijiyeen ilo deegaanka wararka ayaa intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah raggii hubeysnaa halka kuwa kalena ay baxsadeen kuwaasi oo lagu raad joogo weli ma jira wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca lamaha ammaanka oo ku aadan dagaalkaasi oo dhacay xalay siqdi dhex waxaana saakay xaaladu tahay mid aad u degan Puntland ay haatan dagaal adag kula jirto kooxaha ka ganacsada maandooriyaha ee ku sugan magaalooyinka maamulkaasi isla markaana dhibaato ku haya bulshada deegaankaasi dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu amar ku bixiyay in laga hortago oo gacan bir ah lagu qabto dadka maandooriyaha soo galiya Puntland iyo kuwa ka ganacsado haatana wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegay in xalay siqdi dhexe ciidamada ahlu sunna wal jamiica ay isaga baxeen gudaha deegaanka Ceeldheer oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamada Galmudug oo kaashanaya kuwa dawladda ay si nabad ah dib u la wareegeen deegaankaas ciidamada hawaanta oo sidoo kale lagu soo waramay inay fariisimo ka sameysteen duleedka deegaanka Ceeldheer iyagoo halkaasi ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo cusub ma cadda sababta ay dib ugu gurteen ciidamada ahlu sunna oo maalmo ka hor la wareegay gacan ku haynta deegaanka u dhow caasimadda Dhuusamareeb dhaqdhaqaaqyadan cusub ayaa ku soo aaday iyadoo xaalad kacsanaan ah laga dareemayo magaalada Gurceel oo horay u la wareegeen ahlu sunna wal jamiica Galmudug ayaa wado habaabul xooggan iyadoo qorsheynaysa inay dagaal culus ay ku qaado ciidamada ahlu sunna si looga saaro deegaanada maamulkaasi xiisada haatan soo korortay ayaa waji kale u yeeshay xaaladda Galmudug oo horay dagaal culus ugu la jirtay al-shabaab oo deegaano iyo degmooyin ka haysta maamulkaas si kastaba shalay ayay ahayd markii ahlu sunna ay ciidamadeeda ka saartay deegaanada Matabaan ee gobolka Hiiraan taasi oo ka mid ahayd meelaha ay dhawaan la wareeg haatana wararka naga soo gaaraya gobolka Tigreega mucaaradka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada militariga dawladda federaalka Itoobiya ay ku soo qaadeen weerar jaha kasta oo uu ka mid yahay gobolka Amhara xafiiska ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ma uusan xaqiijinin weerarkaani oo yimid xilli ay jirto xan ah in ciidamada militariga ay qorsheynayaan howlgallo waaweyn hase yeeshee wuxuu sheegay in dawladda uu waajib ka saaran yahay in shacabka ka badbaadiso jamhadda TPLF wararka Abiy Ahmed ku hanjabay inuu dib ugu qabsanayo Tigreega si rasmi ah ayuu u bilaabay waxaa sidaasi war-saxaafadeed ku yiri jamhadda TPLF subaxii 11 Oktoobar 2021 militariga Itoobiya oo taageero ka helayo ciidamada Amharada waxay bilaabeen weerar isku xiran oo jiha kasta ah oo lagu yiri warar saxaafadeedka kasoo boqolaal kun oo maleeshiyaad ah oo ciidamada xasuuqa damacsan waxaana taageerida tan iyo diyaarado dagaal iyo kuwa daroon ah taasi oo aan shaki gelinin damacooda ah gumaadka dawladda Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeysay in howlgalka militariga ee waqooyiga lagu beegsanayo ay si rasmi ah ugu calaameysay ururka argixisada ee aan loola jeedin shacab afhayeenka TPLF Gitwa Rida ayaa sheegay in kasta uu jiro weerarka cusub haddana ciidamada aysan weli soo gaarin Tigreega wuxuu sidoo kale sheegay in TPLF aysan ka warhaynin wax ku lug lahaanshaha ciidamada Eritrea ah kuwaasi oo horay militariga Itoobiya u taageeray intii uu socday dagaalkii 12 bilood ah dawladda Itoobiya waxay mas'uuliyad ka saaran tahay inay shacabkeeda ku sugan dalka oo dhan ay ka badbaadiso ficilada argagixisada ah waxaa sidaasi tiri Bilen Seymour oo ah afhayeenka Abiy Ahmed dawladda Itoobiya waxay sii wadi doontaa inay ka hortagto burburinta TPLF rabshadaha iyo dilalka ka dhacaya gobolka Amhara ee meel kasta oo kala daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeray war wixii dalkii dafaha caalamka aan idinkaga haynay wararkeena maanta waxa idin soo saaray oo idin akhrinay anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.